بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كسو دوادا عشركي صدن يا أفراد برنامجكي جوركا إيا أحكام تيسا أما جوشا قويسكا ليبانتا قويسكا فرحدا قويسكا waxaan kusoo jirnay xuquuqdii labada isqaba ay isku lahaayeen gaar ahaan xaqii gabadha ayaan kusoo jirnay ama xaaska waxaan maraynaa xaqa sideedaad ee ay gabadhu ku leedahay ninkeeda. xaqa sideedaad ay gabadhu ninkeeda ku leedahay waxa weeye siyaanatuhaa wa icfaafuhaa, gabadhii inuu dhowro oo ilaaliyo, yacni xaggii gogoshii inuu ku dhowro oo maaragtay galmadii iyo dhankaas uu ilaaliyo, yacni uu gabadhii shahwadeedii u gudaa ee uusan ka maqnaan wax badan, ee uusan iska ag seexan. maxaa yeelay nebigu calayhi salaatu wasalaam guurka wuxuu ku sheegay inuu indhihii laabayo farjigiina ilaalinayo markii qofkii shahwadii ay ka baxdo. marka taas marka waa muhim, waxaana taas caawinaya oo fududaynaya in labadii qof midba midka kale uu isku soo qurxiyo, isku soo udgiyo, isku soo carfiyo. ninkii gabadhi waa inuu isku soo qurxiyo, isku soo carfiyo, isku soo udgiyo, isu soo nadiifiyo. gabadhiina sidoo kale sidii xadiidka nabigu uu ahaa calayhi salaatu wasalaam, allatii tasuruhu idaa nadar, gabadha fiicani waa midda markii uu fiiriyo oo eego maaragtay farxad gelinaysa, asagana sidoo kale ayaa laga rabaa. marka maxaa yeelay quruxda iyo wanaagga waa la jecel yahay, ilaahay waa jamiil, quruxda iyo wanaaggana waa jecel yahay. ina allaha jamiil yuxibu ljamaal. quruxdu marka labadii qof markii midba midka kale isku udgiyo, isku carfiyo, isu nadiifiyo, u soo labisto, waxaa yacni fududaanaya israbitaankoodii iyo dareenkoodii. markaas waxay noqonayaan dad israbo oo isku dhowrsanaya. maxaa yeelay maanta waxaa jira guryo badan, cabashooyinka ka jira qayb ka mida inay ka tahay labadii qof oo gogoshi isku seegay ee aan mid midka kale dan ka lahayn, ama midii uusan dan ka lahayn. waxyaalihii fududaynayay iyo wixii oo dhanna waxa weeye la ag maray. labadii qof waxaa la rabaa gabadhii inay ninkeeda isku qurxiso, asna uu isku qurxiyo, inuu isku udgiyo, ayana ay isku udgiso, in dhar qurxoon la isku soo xirto intii ay awoodaan. marka maxaa yeeley nabiga calayhi salaatu wasalaam sida axaadiidtiisa ka muuqato noo dardaarmayahay waxa weeye haddii oo labadan qof ayagu ay qofba qofka kale u qurxoonaado, xataa indhahoodii meel kale aadi mahayaan. tusaale markii aan soo qaadana xadiidkii saxiixa, nabigu wuxuu leeyay calayhi salaatu wasalaam, idaa absara axadukum imra'a falya'ti ahlah faina dalika yaruddu maa fii nafsih. ninku haddii uu haweeney arko, haweeney ajnabiya haddii uu arko. riwaayo kale, idaa axadukum acjabathu lmar'a, haddii qof adinka in ka mida haweeney ay cajab geliso, fawaqacat fii qalbihi, qalbigiisa ay ku dhacdo shahwo iyo ay u galaan haweeney ajnabi ah. muxuu leeya nabigu calayhi salaatu wasalaam, falya'ti ahlahu faina dalika yaruddu maa fii nafsi. xaaskiisa ha u tago, taasi waxay ka saaraysaa wixii qalbigiisa ku jiray. riwaayo kale, falya'ti ahlah faina macaha mithla aladii macaha. xaaskiisa ha u tago, ha u galmoodo, maxaa yeelay waxa xaaskiisa ku yaala tan ajnabiga wixii ku yaalo kale. marka shahwadii markii ay qofkii ka baxdo, yacni fitnadii iyo wixii qalbigiisa ku dhacay ayaa maaragtay ka baxaya. xadiidku marka wuxuu noo cadaynaya, xadiidka saxiixa nabiga calayhi salaatu wasalaam uuna barayo riwaayooyin kala duwan ah, yacni ninkii inuu xaaskiisa ku qanacsanaado, xaaskiina ay ninkeeda ku qanacsanaato. wax kasta oo kaleo qalbigooda kusoo dhacana ay ayagu isi soo aadaan. ninkii uu xaaskiisa usoo cararo, iyada ay ninkeeda soo aado. yacni markii la isku qurxoonaado, ninkii naag kastoo qurxoon hadduu arko, wuxuu xusiisanayaa xaaskiisu inay ahayd midda ugu qurxoon. markay u labisato, tan ugu carafta badan markay isku carfiso, maaragtay ay u xusiisanaya. ayadana sidoo kale cid kaloo ajnabiya indheheedu ku dhaci mahayaan mar haddii ay maskaxdeeda ku jirto ninkeedii carafta badnaa, ninkeedii quruxda badnaa, ninkeedii isu nadiifinayay, ninkii u labisanayay. waa wax muhiima weye. marka axaadiidta rasuulku sidaas ayay tilmaamahaas ay noo siinaysaa. waxaa muhiima marka labada qof qofba qofka kale
inuu isku soo qurxiyo, isku soo udgiyo. taasi waxay keenaysaa oo boorinaysaa oo dhiiri gelinaysaa in oo jimaaci iyo galmadii ay fududaato, in labadii qof isu baahdaan, in labadii qof isdareemaan. haddii labada qof midba midka kale uu gabadhiina ay dharkeedii jikada ay ku galaysay ay wadato, ninkiina uu dharkiisii uu ku yimid uu wato, maaragtay hadduu rabo uu sigaarkiisa iska cabuusa iska nadiifinayn, midba midka kale hadduu uu kasii qaab daran yahay, damac ma jirayo. haddii hamigii la waayana, labadii qof israbitaankoodii isjacaylkoodii wixii o dhan haddii la waayo, in la kala jeesta imaanaysa. hadhow la is eedeeyo la yidhaahdo ninku dan igama le, ama gabadhii oo uu ninkii yidhaahdo waxa weeye xaaskaygu dan igama le iyo damac midna ma leh. marka taas waxaa wax allaala wixii isku soo jeclaysii karo, dadka dareen isu geli karo ayaa diinta ku naseexaynaysaa. ajarayna kala helayaana waa inay midda koobaadba ogaadaan kulankoodaas ay kulmayaan inuu yahay ajar waxay ka helayaan. maxaa yeele nabigu calayhi salaatu wasalaam waa tii uu lahaa wa fii budci axadikum sadaqa. qofka xaaskiisa oo uu u tago ajaru ka helaya sida sadaqadii oo kale ah. markaasay asxaabtii yiraan rasuulka ilaahay ow, inta ninku raaxaystay oo shahwadiisii gutay miyuu haddana ajar ka helaya? markaasuu nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, ka warrama haddii uu shahwadiisa xaaraan ku guda lahaa, nag xaaraan haddii u tegi lahaa. marka taas waxay tusinaysaa yacni xaaraantaba sidii dembi uu ugu dhici lahaa, xalaashana inuu ajar uga helayo. laakiin waxaa muhiim ay leeyihin culammadu xadiidka markay sharxayaan, ixdaaru niya, niyadii inuu soo xaadirsado oo uu niyeysto yacni hawshan uu samaynayaahi inay tahay wax wanaaga, daaco uu ka dhigo, inuu macaasidii zinadii uga fogaado, awlaad saalixiina inuu helo, maaragtay xaaskiisa shahwadeeda inuu guto, tii asaga laftigiisii saareed inuu iska bixiyo. niyaddii haddii ay soo xaadirto ayaa maaragtay ajarka uu ka helaya. oo nabigu uu ley calayhi salaatu wasalaam, sida haddii uu xaaraan ugu dejiyo uu dembi ugu dhici lahaa, ayuu xalaal markii xaaskiisa ugu tagana ajar uga helaya. haddaba waxaa aada u kala fog laba nin oo nin maaragtay xaaskiisii ay ku faraxsan tahay, ay isu diyaarinayso, ay sugayso, asagu markuu yimaado isdiyaarinaya, iscarfinaya, is-udginaya, la isku faraxsan yahay, midba midka kala sugayo. iyo ninka xaaskiisii ay maaragtay ka ashahaadanayso oo hadhow yacni waxaa ka soo karaya sigaar ha ahaato, balwad ha ahaato, nadaafad darra ha ahaato, ay leedahay hal mar allow idhaafi. haddii uu u soo dhowaado wax ay ka soo urayaan, oo hadduu dhunkoo tago sigaarkii iyo balwaddii ka soo karayso, labadaas qof waa kala duwan yihiin. waa muhim inaan isku baraarujino, maxaa yeele arrimahaas su-aalahooda iyo dhibaatooyinkoodu waa badan yihiin. marka ninkii inuu isudgiyo, afkiisa uu udgiyo waa sunno. gabadhii sidoo kale waxaaba naloo jiidaya cadaygii. sunnada ugu fiican ee la isku udgiyo afkii lagu udgiyahay cadaygii wey. in la is-udgiyo muhim weye, diinteennu ay dardaarmayso. is-udgintii kaleo baraafuunkii iyo catarkii la isticmaalayay intaan la isu tegin waa muhim. maxaa yeelay waa sunnadii nabiga calayhi salaatu wasalaam. caaisha waxay leedahay xadiid saxiixa, nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaan udginayay oo u baraafuuninayay oo catarinayay, markaas ayuu xaasaskiisa isku marayay. markaasuu waagu markuu baryo waa bariisanayay, markuu xajka xiranayo asagoo catarki uu ka hoorayo. marka diibkaas, catarkaas iyo baraafuunkaas iyo waxyaalahaas carcarfoon waxaa la yidhaha waa waxyaalaha shahwadii badinaya, waxyaalaha labadii qof isku soo jiidaya, labadii qof isjeclaysiinaya weeye. weliba culammadii salafku waxay dhihi jireen qayb ka mida, waxaa fiican markaas gogosha la joogo, waqtiga gogosha la joogo, in gabadhu iyo ninkeeduba ay isku hal catar ama isku hal baraafuun isticmaalaan fiican ay dhihi jireen waqtigaas. marar kale haba u kala duwanaadeen. haddaba mas'ale muhiimah meeshan taalla. masaladan waxa weeye, waxaa la weydiiyey imaamkii weynaa ee culammada shaaficiyada ka mid ahaa ibnu xajar ulhaytami. ninkii hadduusa iscarfinayn, ragga qayb ka mida waxay jecel yihiin xaaskiisu inay carafta guriga se u carfinayso, fooxayo uunsigu u karahayo, sariirta u qurxoon tahay, iyadoo ugu labisanayso, maaragtay ay isu carfinayso ay jecel yihiin. laakiin asagu uu
sidii uu ahaa oo uu ku yimid uu raba hawshiisa inuu ku dhammaysto. gabadhu inta aad leedahay inta aad rabtid oo kale rabtaa. gabadhu inta aad rabtid oo kale rabtaa. waxa aad jeceshahoo kale jeceshahay. sida aad u jeceshahay inay caraf badan tahay, inay labisan tahay, inay isku soo kaa qurxiso, ayay iyaduna u jeceshahay ninkeedu inuu carfayo, inuu u labisan yahay, inuu isku soo qurxiyo. haddaba imaamka ibnu xajar alhaytami waxaa la weydiiyey, gabadhii haddii ninkii uusan ishagaajinayn ee wasaqdiisii uu wato, uu balwadiisii soo cabo, yacni sigaarkii uu ka soo karayo, ay shiirkiisa ku dhibtooto, ee markay isku kulmayaan ay aada ugu dhibtoonayso, haddii ay isu diidoo tiraahdo kaama yeelaya inaa ii soo dhowaatid adigoon iscarfin, gabadhaasi mukhaalifo miyay noqonaysaa? mukhaalifo, gabar ninkeeda caasisay oo dembi ku dhacaysa ee malaa'igtu lacnadaysa miyay noqonaysaa? ayaa la yidhi imaamka la weydiye ibnu xajar. masalan fataawigiisa alfataawi kubra ay ku taallaa. ibnu xajar muxuu ku jawaabay? wuxuu yidhi gabadha wax kasta ee haddii ninku ku dhibsado lagu qasbi lahaa in ay iska suuliso oo la dhihi lahaa iscarfi, asagana haddii yacni lagu arko la yimaado waxaa lagu qasbaya inuu iska suuliyo. yacni si kale haddaan u dhigo, wixii ninku gabadha uu ku dhibsa lahaa ee nadaafad daradii iyo caraf la-aantii iyo yacni isku dhexyaacii ah, asagana haddii ay kula dhibtootuu leeyahay, asagana waxaa lagu qasbayaa inuu iska nadiifiyo uu yidhi ibnu xajar. marka mukhaalifo ma ahan uu yidhi, masaladaas mukhaalifo kuma ahan. marka in aan ka digtoonaano wey. waxaa kaloo masaladaas la sii socdo imaamka kusii dheeraada, haddii maalanba ninkii xanuun uu ku dhaco, xanuunkiina dhaqaatiirtu ay sheegaan inuu yahay xanuunada la isku gudbiyo, xanuunada la isku gudbiyo oo culculus haddii uu ka mid yahay, haddii gabadhii ay isu diidda ninka, mukhaalifo ma noqonayso. sidoo kale haddii uu yahay xanuunada aan la isu gudbin, laakiin uu yahay xanuun oo aad ninka jirkiisii u uriyey oo ay ku dhibtoonaysa, asagana uusan daawooyin ka nadiifiyo uusan isticmaalin, ayadana hadday isku diiddo kuma dambaabayso. aad la socota masaladan. marka calaya kulli xaal, ninku waa inuu gabadha ama xaaskiiska isku soo udgiya, isku carfiya sida uu jecel yahay inuu isku udgiyo. sidoo kale maadaama aan gogashi ka hadlaynay, waxyaalaha muhiimka oo sunnada waxaa ka mid ah in la hormariyo muqadamaad, yacni istimtaaci iyo raaxaysiga hore intaa la isu galboon. ayadana waxay ka caawinaysaa labada qof in ay maaragtay hadhow si farxad la ku kulmaan, hadhow xaaska inay shahwadeeda gudato ee uusan ninku ka tegin ayadoo shahwadeeda gudan. maxaa yeele haddii hadba uu ka tago iyadoo shahwadeeda gudan, waxaa imaan karta nacayb iyo qalbi xumo iyo khilaaf inuu yimaado. kutubta dhan sidaasay leeyihiin, waa in oo cayaar iyo ay ka hormaraan, sidii nabigu calayhi salaatu wasalaam uu jaabir ugu yiri, hal laa tasawajta bikran tulaacibuhaa wa tulaacibuka. gabar bikaara ah oo aad la cayaartid ayaduna kula cayaarta, maxaa u guursa weyda? marka waxaa ujeedka xadiidka waxa weeye in oo yani cayaartii horudhaci ay muhiim tahay, diiniyan ay muhiim tahay. riwaayo kale, maa laka walilcadaara walicaabiha, uu nabigu le calayhi salaatu wasalaam, maxaa kuu diiday gabadhii bikaarada aheyd iyo dhareerkeedii, uu nabigu le calayhi salaatu wasalaam. markaas dadkii afkoodii hadday isla gaaraan markay cayaarayaan inay sadhib lahayn, xadiidkan culammada muxadisiintahi ka daliishanayaan. marka isku qurxinti waa muhim. waxaa niri salafkii cabdullaahi bnu cabaas dhowr jeerna waa soo sheegnay, markuu aayaddan ka hadlahayo wacaashiruuhuna bilmacruuf, cabdullahi bnu cabaas xaaskiisa uu isku qurxi jiray, aada iskugu qurxi jiray. wuxuuna dhihi jiray waxay ka mid tahay mucaashara bilmacruuf, in wanaagii lagula dhaqmo gabadha. waxaana daliil uhu leeyahay oo kale, walahunna mithlu aladii calayhina bilmacruuf, gabdhuhu waxay idinku leeyihiin inta lagu leeyahay oo kale. gabdhuhu waxay leeyihiin inta lagu leeyahay oo kale oo wanaaga, si wanaaga. macnaha gabadhii sida ayadaba in ninkeeda ay isku qurxiso looga rabo oo isku carfiso, asagana laga rabaa inuu isu carfiyo, xaqay u leedahay. marka masaa-ishaas oo dhan waa muhiim, waana wax oo caawinaya labada qof isjacaylkooda caawinaya. isqurxintaas hadba meeshii la joogo iyo sidii dadkaasi wixii ay qurux u yaqaanaan ayaa maaragta ay noqonaysaa. aimadu leeyihiin waxaa dhici karta wax waqti qurux ah inaysan waqti kale qurux ahayn, wax dadka qeyb qurux u ahoo maalan ba dhalinyaradii qurux u ah inaysan dadka waaweyn qurux u ahayn,
wax dadka waaweyn qurux u ah inaysan dhalinyarada qurux u ahayn. mar kastaba yacni waxaa la rabaa in lagu dadaalo macnaha waxyaalihii quruxda loo yaqaano meeshaas la joogo. laakiin waxaa la isku raacsan yahay catarkii haddii uusan dadka dhibayn oo sanbor iyo waxyaala jirin, cadaygii, maaragtay cidiyihii oo la jaro, hadda maaragtay wixii wasaq iyo saysa ugu dhexgelin, waxyaalahaas oo dhan waa wax oo quruxa. waxaa ka mid ahay yani tintii hadday ciro tahay in la cilaamiyo, faraatigii, waxyaalahaas o dhan qurux wey leeyihin la isu soo xirto. marka waxaa kaloo sunno ah ninkii inuu ku dadaalo xaaskiisa waqtiyada ay u baahan tahay ee ay jeceshahay ninkeeda inay la kulanto, inuu ku dadaalo oo uu samoogaan ayaa la rabaa, ayay culummadu leeyihiin. marka insha allahu tacaala casharkeennii intaas ayaan kusoo koobaynaa. casharka dambe waa cashar muhiima oo su-aalo muhiima uga hadli doono. su-aalahaas casharka dambe aan uga hadli doono waxaa ka mid ah ninka haddii uu awoodiisu yaraato markuu xaaskii la kulmayo, ama biyaha ay kasoo degdegaan oo kale shahwadii, daawo ma isticmaali karaa diiniyan, maxaa kutubtu ka yidhahdeen, yani xagga kale waa la ogi caafimaadka. su-aasha kale waxa weeye gabadhu imisay ninka u samri kartaa oo ay moogaa kartaa lacalla hadduu ka maqan yahay. su-aasha xigta waxa weeye ninkii iyo xaaskiisa inay hal gogol iskula seexdaan miya sunno ah diiniyan, mase laba gogoloo kala duwan inay ku seexdaan. masaa-ishaas oo dhan yani cilmiyana u ogaanaynaa, laakiin dhanka kale inaysan nolosha caadiga dhib lahayn waa la ogyahay, laakiin cilmiyan waa shareecadu waxa ay ka tiri wax kasta inaan ogaano weeye, si aan mar kastaba ugu soconno sida fadliga badan. intaasna casharkeena kusoo koobayna. wabillahi towfiiq, wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.